qofka mu'minka ahi ilaahay buu hor taagan yahay dabeetana rabbuu la hadlayaa ilaahay wuxuu ku leeyahay haddaad aniga toos iila hadlaysaana waa kuu jawaabaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markaad tidhaahdo xamidanii cabdii baan odhanayaaba rabbi leey addoonkaybaa ii mahadnaqay ima hadiyey alraxmaan alraxiim markaad tidhaahdo ahnaa calaya cabdii baan odhanayaa addoonkaygiibaa i ammaanay maaliki yowmiddiin markaad tidhaahdo majadanii cabdi addoonkaygiibaa i weynay ilahay wuu kula hadlayaa laakiin haddaanad ogeynba inaad faatixada akhriday iyo inaad akhrin alxamdulilah rabbi alamin laakiin xisaabtaadaad iska wadatay imaamku markuu assalaamu calaykum yidhi un baad baraarugto adna assalaamu calaykum tidhi nin shaydaan la yidhaahdo oo khatar ah oo u gaara salaadaha inaga shaqeeya iminka haddaad cunno cunayso wax kale ma ka fekertaa mise cunadunbaad hamtaa ku haysaa fekeri maysid haddaad tv-ga daawanayso wax kale ka fekeri mayso waad iska daawanaysaa waxa uu sheegaya unbaad arkaysaa hadduu qof kula hadlayo wax kale ka fekeri mayso salaada markaad u kacdo unbaa dunida lasoo ururinaya markaad waxa kale qabanayso shaygaa camalka aad hayso unbaad ka fekeraysaa shaqo kale markaad hayso o dhan haddaad imtixaan ku jirto isagaad ka fekeri haddaad shaqaysanayso shaqadunbaad ka fekeri haddaad waxaad qabanaysa kalead ka fekeri mar allaali markaad salaada isu taagto ayuunbaa qolo kale imanaysa una markaasunbaa adduunka lagugu soo ururinaya idan saa daraaddeed nabigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam mid baa tukado salaadiisa 10% leh mid baa le baa la yidhi tusuc aha tusuc waa 1/9 waa xawaalay less than 13% meelahaasuu noqonaya mid baa le thumunkeed baa la yidhi 1/8 1/8 mid baa le ilaa iyabuu nabigu soo gaadhsiiyey nisf mid baa leh 50% salaadiis idan salaada waynu ku jiraa oo safka waa wada taagannahay cinda allaahi se waxaa la qorayaa isku noociyaad maaha salaadiina way asaxdo shuruudeedii waynu samaynay laakiin markay ilaahay agtiisa joogto isku nooc noqon mayso marka waxaa laga yaabaa nin 20 sano tukanayey mid sanad tukanayo saadiq ahaa inuu kaaba ajar badan yahay sanadkiisu sanad midida oo uu soo jeedo rabbi uu caabudayay idan anugu weligay baan soo waday kan yari muxuu sheegay weligaa qofa yaraysanin muslima garan maysid cidda laga aqbalay garan maysid adigaagii 30 sano soo waday waxaa laga yaabaa inaad 10% weligaaba waday ama 0ba qaarkood ay ku dhaceen dee mid mintida hadduu yimaado 50-50 laga aqbalayo shantaadii maalmoodba maalin isagaa shantaadii sannadoodba sanad isagaa bay noqonayaan idan wuu kaa badinayaa idan markaynu qubuulka ka warramayno waxaynu ka warramaynaa cama fi lquluub waa mar waxaynu ka warramaynaa mawaanic khaarijiya inaanay jirin wax manciyo oo joojiya salaadaada in la aqbalo مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حليه 3 لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا حديث ابن ماجه حسن كا صدح صلاة دودة تاكاين لك مدحودة بما دافته مدنا اكسونو صلاة دمر كينو دهنا لما اقبالين معنى يد موحوية وتسوعي لنيسا مايا أجزاءت وقدي صلاة نمدي لقو قبصان ما يا آخر لقو ملا صلاة دي متكنين آخر أنت لقو سوى تاقل لورا ما يني كريم حي صلاة متكنين لكن ده قبصة قولا ما أسعنين 1 هذا شرور رصته 1 لأن هذا الصلاة بي لبا الصلاة دون انت ودا حيث تكفر ما قبلها صلاة بي صلاة كالدين بقيدين كام يدو تذكر برد بسؤال سويدية ونيو صلاة ولا بس صلاة كحيت هدي دم بقى ما يرسى مثلا رمضان إلا رمضان محي ما يرسى أما جمعة إلا جمعة محي ما يرسى ده تادو مدير الناقص صباح هذا واحد بدل ما يرد مركي هراد 10% يا 5% يا 15 مركي هذا سكو شابا يستال لقى يابا إني محي شنتي وحوجا ما يدو جمعي وحوجا قصو هذا برد ما يدو رمضان تنتي صو هذا برد ما يدو ده دال كبادي صو والله يابا إني إسبير سطو لكن النبي يقول عليه الصلاة والسلام صدح صلاة دودة مدحود الله ما ضافيه رجل أما قوما وهم له كارهون بنبور نندت شوب سكجا هيستو صلاة كيي يجوا عن ربين صلاة ديس وخطر ده ملاك دولة دنيا ضدن قصب كوه هيستانا مدام يانو ملايين يا ده دي صلاة قرا هل صلاة كيكو هيستانا وعملينين كأن أمة دانس كاف ضوبتينا ملا مداميو لكن حديث كناس كيسوح شيء من أما قوما وهم له كارهون ننكدد إمام النقضة إيقون نعب وان ربن ولذلك أئمة مساجد يرقى مساجد التكية وحكا وحف يعني
inuu quluubta dadka ilaaliyo oo dadku qof ay raalli ka yihiin inuu noqdo maxay qofka dadka tukinaya oo masaajidka inaan lagu haysanin uun maxaa qorsakaara ma tiraahdaa maxaa tiraahdaa inaanu iska afduubanine inay muslimku wada socdaan qulubtu inay wada socotaaba ka muhiimsan waxa kaloo dhan sidaa ogeed buu nebigu yidhi wamra'atan baatat wa zawjuha calayha saakhitun gabadh hoyatay iyadoo ninkeedu u cadhaysayayana wax laga aqbali maayo idan dumarka muslimiinta waxa saaran inay isku dayaan zawjkeeda inay raali geliso wamra'atan casat zawjaha xataa tarjicna xadiis kale sheegayay ka saddexaad waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wassalaam ka saddexaad waxa uu nebigu sheegay waa akhawaani mutasaarimaan laba walaalo oo kala iska laalaada xadiidkii muxuu sheegayay qof kasta oo ilaahay rumeeya qof kasta oo laa yushriku billahi shay-an marka acmaasha ilaahay loo bandhigo khabiisaha iyo meelahaas oo kale in ilaahay dembigoo dhaafo xadiidkii sheegayay saxiixeynka ku yaallay laba mooyaane buu nebigu yidhi labadaasi waa kuwee laba ishaysta iyaga waxaa la idhaha andira haadayni xataa yastalixa labadaa iyaga dib iga dhiga baa ilahay yidhahda intay ka heshiinayaan idan akhwaan mutasaarimaan haddaynu isu wada cadhaysanno iska laalaadno cibaadada inaga xumaanaysa haddaynu rabno in cibaadadeennu cinda allahi ay maqbuul noqoto waa inaad qof qalbi saliima leh waa inaad ahaataa qofka mu'minka ahi nebiyullaahi ibraahim muxuu ku ducaysanayey aakhiro wuxuu weydiisanayey qalbigiisa in alla ka dhiga maxay qalbi caafimaad qaba sidaa awgeed waxyaabaa jira camalkii inaga burinaya ama in cinda allahi maqbuulu noqdo xumaynaya masalan qur-aanka ilahay wuxuu leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa war kuwa iimaanka laga helayo waxaa ilaahay dartii ula baxdeen adiya dhib iyo gallad sheegase ha ku burinina haddaad intaad wax bixiso un ka daba hadasho ninkaa beraan si fiican u galay qoladaa biil baan u diraa maalin kasta lacag joogtaa baanse ha iska burinin waad dirtay ajar baad doonaysaa ilaahay baad la baac mushtaraynaysaa qofkan maaha qofkaad wax ka doonaysa haddaad adduunye ku doonaysa waa halkeed ood salada isna markiisaa ku abaalgudo laakiin asalka qofka mu'minkii waa maxay wuxuu bixinayo ilaahay buu kula tijaaraysanaya waxay la mid tahay lacagtaad bangiga dhigato markaad bangiga tagtay accountka lacag ku shubato sooma rumaysnidan adigu leedoo account ku shubatay tanaad baxsatayna waxaad rumaysan tahay accountka aakhira inaad ku shubtay saa daraaddeed waxaad rumaysan tahay inay tahay kayd adigu aad kaydsatay cid kale waxaad siisay maaha qofka muslimkii saasuu u fakeraya waxaan ula baxay inay tahay kayd uu isagu meel dhigtay haddaba kaydkaaga ha iskaga burinin baa ilaahay leeyahy inaad sheegto oo aad manni aad dadka ugu gallad sheegato amase adiya iyo dhib inaad ka dabageyso sida awgeed waxaan leenahay ayuha alaxiba acmaasha in laynaga aqbalaa masalan nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ninka caraaf u taga kuwan faalfaaliya waxaa kane rumaysta wuxuu sheego maxay xadiis riwaayaadka qaarkood waxay sheegayeen inaan 40 yowman maxay camalkiisa la aqbalin 40 casho camalkaaga la aqbali maayo haddii la yidhaha miyaad salaadaha iyo waxba iska daynaysa maya waxba waad tukanaysaa waayo dimadaadaad rabtaa inaad beri yeesho tajzi'uk qadaa lagugu yeelan maayo laakiin dee ajarkii la rabay ayaad iskaga lugoynaysaa halkaad ajar ka heli lahayd ayaad ajarkii nuqsaaminaysaa haddaba ayuha alaxiba waxaynu u baahannahay cibaadaadkaynu ilaahay ula imanayno subxaanahu wa tacaala inaynu xumaha ka ilaalino inaynu qurunka ka tirtirno inaynu maxay qalbigeennu uu noqdo qalbi soo jeeda waayo maa fi lquluub xataa inaha la aqbalaya waxay ku kala gedisayin baynu dhi waxa qalbiga ku jira oo maalan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay dirham ayaa wuxuu ka badiyey sabaqa dirhamun 100,000 dirhamin buu nabigu yihi hal dirham oo sadaqa loo bixiyey ayaa ka fadli bato ka dheereeyey 100,000 oo dirham buu nabigu yidhi 100,000 oo dirham si uga badanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay culammadu leeyihin dirhamkan uu sheegay maalan markaad soo qaxaysay ama markaad soomaaliya ka qaxdeen adigoo aan waxba haysan oo $10 sita xoolo waanay kaaga dambaynin oo waddana aad garanayn joogo dee 10kan la jeclo ka badan boqolaalka kuwa haystaa kaaga jira
haddii aad mid 5 u dhiibto waad la naf qaybsatay markaa weeyaan. nin balaayiin iska haystaa hadduu in yar ka xoobiyo uu mid u tuuro 100,000 isaga agtiisa $5 qiimahay kugu joogtay kuma joogaan maxay boqolaalka kani. idan xaaladda aad ku sugantay iimaanka qalbigaaga ku jira, ilaahay sidaad u weynaynayso, aakhira sidaad u hunguraynayso, waxaasaa waxay qiimo u yeelayaan cibaadaadkaad la imanaysaa intay leegtahay. marka camalka lama yaraysto, dirham ha noqdo ama 2 ha noqdo ama ha ka batee camalkaaga ha yaraysanin. xataa waxaa axaadiistu tilmaamaysaa tawxiidkeennu sow laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ma wada lihin dhammaanteen, sow dad muslimiina ma wada lihin. xataa laa ilaaha ila allahdeenu isku qiimo maaha aakhira markaynu tagno, isku qiimo maaha. waayo axaadiista nebigu waxay sheegaysaa calayhi salaatu wasalaam qaar aakhiro tegey oo tawxiidsaday laakiin dembiye galay, dabeetana dembiyadii ay sameeyeen lagu ciqaabay oo cadaabka galay, laakiin cadaabka ku waari maayo. horta laa ilaha illa allah mar kasta waxbay taraysaa, waayo cadaabka inaad ku waarta habay kaa ilaalinaysaa. gaalkaa cadaabka ku waaray qofkii muwaxidka ahaa xataa hadduu cadaabka galo wuxuu ku jirayaa maxay muddo, laakiin dee muddadaa ilaahay garanaya. 1 milyan oo sano haddii lagu cadaabo ka war, haddaad tidhaahdo kolley waa tawxiidsanaysaa naarta waad ka soo boodiye, boodisteedu ma fududa. marka walciyaadu billaah ilaahay baan ka magan galaynaa. laakiin waanad ku waaraynin, waad ka soo baxaysaa aakhirkii. waxaa kaloo uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam mid inta la soo taago la keenayo 99 sijilla, 99 fayl baa la keenaya oo dunuubuu galaya. kan ma gashay, kan ma yaa rabbi haa buu leeyahy, waa qiranaya. waxaa la leeyahy wax xasano o aanu kaa dulminay miyaad garanaysa? wax xasanaadkaagii maqan oo aan meesha kuu oolin miyaad garanaysaa? may buu leeyahy yaa rabbi. xadiidku wuxuu leeyahy ilaahay baa wuxuu ku yidhaahdaa xasanaanu ku haynaa weli, mid baa kuu hadhay. dabeetana bataaqaa la keenaa buu nebigu yihi waa kaadh. sijillaadka waxaa la yidhi mashriq iyo maqrib bay sijil weliba uu taxan yahay, tani laakiin waa kaadh, waa bataaqa. bataaqaa la keenaa, bataaqadaasi waxaa ugu qoran tawxiidkiisii. dabeetana waa la saaraa miisaanka. wuxuu xadiidkaasi tilmaamayaa inuu bataaqadaasi waxaan oo dhan ay ka cuslaan doonto. yacni waxaa meesha ka cad dadkii wada tawxiidsaday inaan tawxiidkoodu isku qiimo goynin. qaar dunuubtii ay galeen ee zinadii iyo rabshadihii iyo wixii ay galeen inuu wada maydhi kari waayey, dabeetana in naarta lagu soo daahirinayo. qaarna waxaa la tilmaamayaa tawxiidkiisa culayskuu leeyahay, ilaahay siduu u weynaynayay uga cabsanayay ee rabbi qalbigiisa u deganaa, tawxiidkiisaasi inuu miisaan weyn yahay oo dunuub badan uu la degayo tawxiidkaasi. haddaba waxaynu leenahay acmaasheenna waxay u baahan tahay kow atanqiya, intaynu nadiifin karna inaynu nadiifinno. waxaynu cunayno inaynu xalaal ka dhigno, waxaynu huwanay inaynu isku dayno inuu xalaal noqdo. dadka inta badan how much you earn un baynu isweydiinaa, waxay doonaa kugu soo galo. laakiin waa mushkilad. waxay ahayd inaad isweydiiso maxaad xalaal xoogsatay. waxa kale aakhira iyo adduuntoona anfac ma leh.